السلام عليكم. أد بندمان السلامة سلامة هو خالص. أنا فنانك مش أقدرك مش فيلم مشتركي مش سكورتي أوفيشالكي علي جديد إسماعيل حسين أدبيس لبنان فنانك مش أقدرك مش فيلم مشترك مش سكورتي أوفيشالكي علي جديد إسماعيل حسين أد بندمان السلامة شيكو أنو أدمدينا waxay ku arki mise ku maqli waxaa dhacay isaaqu maxay isaaqi somaliland ahay iyo jabuuti wada socday ee la dagaalamay khaatuma state iyo puntland iyo maakha state oo ah daarad la dagaalamay isaaqu maxay u biqi waayey adduunka waxa uu ayaa la sooqsan reeriyooga ugu ganacsi isaaqu maxay u biqi waayey uga biqi waayey reeriyooga ugu ganacsi weyn oo kala ah oo daarooga badan halti sida warsangeli majeerteen dishish iyo isaaq afartaas adduunka ugu ganacsi weyn ganacsigooda waxaa ka mid ah inay dadka iibiyaan marka faasacad bota isaaq la soo qabto nimanka soo qabto waxaa nimanka dadka iibiya nimanka dadka iibiya ma inshiba ma yumanba welibana siilad noqosho siiladda xoolaha arigii geelan lagu iibiya dadka waa lagu iibiyaayo ninka siiladda dad siilad noqosho ninka siiladda waa libaax weeye libaaxu ka tafira oo xitaa dadka waa lagu iibiya isaaq muxuu baqo reeriyooga ganacsi weyna dadka iibiya dishishay majarteen iyo warsangeli iyo isaaqba marka aabbahay xudiidiyo sumeynaya sumaa dhacay ninkii adduunka waa yala suuqsanaaba wuxuu weydiiyey ninkii adduunka waa yala suuqsan waa reer guji magiisa waxaa layidhaha dhulwas ciidba dagaalka somaliland oo isaaqa iyo jabuuti oo wada socda ka dhexdhacay khaatuma state iyo puntland ciid baa su-aal la weydiiyo ninkii jabuuti adduunka waa yala suuqsanaaba suuna dhacay suunkuna wuxuu ahaa wuxuu soo bandhigay aabbaheeda gabadhii dad ugu heegtay ruqyo maxamed carshe oo ah warsangeli ismaa ibraahim gobyoog aabahayna waa warsangeli ismaa ibraahim gobyoog hooyadii xawa garankan waa warsangeli ismaa ibraahim gobyoog weeyo aabbaheedid wuxuu soo bandhigay gabadhii dad ugu heegtay ruqyo maxamed carshe la yidhaah oo wiilay dhashay naftii xudiidi u iibisay wiilkana magaciisa waxaa la yidhaah xudiidi markii abba xudiidi su-aal laga weydiiyey dagaalkii goojaado wuxuu ku jawaabay
soo laban dhacay ninkii adduunkii Jabuuti ugu ciyaara suuqsana kaasina waa dhul was isagoo su-aal weydiinaya suuqa markaa nafta markaa la qaado suuqii baa lala fadhiistaa dhul was ciyaara suuqintii adduunku way garan weyn nafta marka la qaado suuqii baa lala fadhiistaa waa suuq la fadhiista marka la qaado inta adduunku ugu ganacsigu waa warsageliya ma jirtani dishishiyeesa los suuqan nimanka uga baqa weydi soo qabaneen dadkii iibiye feesaal butamay gacanta kusoo dhigi kara dhulkii dagaalka goojaade abay xudid wax laga weydiiyey ee Jabuuti iyo Somaliland dagaalka wada socdaan daaradkuna wada socdaan Buntland iyo Maakhir iyo Khaatimo iminka wax laga weydiiyo ku jawaabay dhulwas suuqan dhacay oo wuxuu tusay tii dadku gabadhii dadku xigtay Ruqayya Maxamed Carshe Yahuuda carruur ay dhashay reer Xaaji warsangeli waa Cumar iyo Cumar Ibraahim iyo anoo isla Ibraahim iyo Dubays oo ka weyn oo adeera Ruqayya Maxamed Carshe odageedii iyo carruurteedu waa warsangeli Cumar reer Xaaji weeye dhulwas buu tusay wuxuu ka jawaabay dagaalka waa jirta ninkii adduunka ugu ciyaara suuqsana Jabuuti ugu ciyaara suuqsana buu soo dhacay maxaa dadkii biyuu ka baqweyd isagoo u soo bandhiga gabadhii dad ugu xigtay Ruqayya Maxamed Carshe oo wiilay dhasho reer Xaajiye naftii xuduudu iibisay oo wiilka magaciisa waxa la yidhaha Xudiida dhulwas buu suuqan dhacay wuxuu weydiiyey dhulwas baa adduunka uga ciyaara suuqsana adduunka muxuu ka baqa waayay dadka iibiyuu ka wada oo waa warsageliya dishishe ma jirteen iyo isaaqun baa iibiyey isaaquu ganacsiga wanaaba iibiyo marka nafta la qaado suuqii baa lala fadhiistaa garan waayo dhulwas oo adduunkii Jabuuti uga ciyaarayso markaas su-aal kala weydiiyey geeljire markii xudeeligu dagaalka goojaadana wuxuu kusii jawaabay geeljire loo jir kuwa adhaga ilaaliya geeljiraha dhulwas baa la weydiiyey dhulsa dad jir ma aragta dhulwas ma garan dhulwas baa adduunkii Jabuuti uga ciyaarayso isaaqii Somaliland iyo ciise reer Jabuuti wada socday ayuu xuduudu ku yiri dadkii bii maxaa uga baqa weyday isagoo tusaale ka soo qaadanaya ninkii adduunka uga ciyaara suuqsana iyo Jabuuti kaasuna waa dhulwas weeye dhulwas buu suuqan dhacay wuu sumay wuu karbaashay suuqa la fadhiisata mise iibsata gabadhi dadku xigtay Ruqayya Maxamed Carshe wiila dhasho reer Xaaji magaciisa la yidhaha Xudiid ay naftii aabbahay naftii Xudiid u iibisay rabbigu shirkad batroolo saliid abduri kaamin foosh oil operations la yidhaaho aan security guard ka ahaa ciidanka shalmesti ka ahaa abduri ayuu ka shaqayn jiro midyaanka ilmaha yar ceedisii nafta ka qaaday gabdha yaryar xitaa nafta ka qaaday wax walba meeshiisaa lagu sugaa shirkadaha ilaaliya batroolo saliida abduri kaamin foosh oil operations markaa soo gaabiya aadku
shirkadaas ka shaqeeya shirkada saliidii batroolka waa maxay waa shaqaltumahawde shirkadaas ka shaqeeya relation departmentka isaga iyo caasho boriya gabadha habar awalo miyaa maskaxda wax kasoo noqoni isirtay wasqal qoranta caasho boriya la yidhaahdi mise xabaala kaabaadis hadduu ku waxa maqlan geelka abaadise geelka abaadistu aad bay noo saanta caaro warsan jira meel ka timaada garan maayo ninku hadduu yahay nin wanaagsan halkaasuu imanaya hadduu yahay askari askartuu imanaya rabbigu ah midgaanka gabdheer jaroo laba jira ciidiyay nafta kaga qaaday hadduu yahay midgaankaas shirkad shaqa midgaana shaqa tumaalo aan albaabka ilaalin jiray ayuu hadda joogaayo ka shaqeeya shirkadana waxaa la yaraa markaa soo gaabiya adku awdabay company for onshore oil operations ayuu hadda joogaa waa shirkadda saliidda ee batroolka shaqeysa waa shaqa tumaan midgaanku waa ka shaqa midgaankii rabbiga ahaa inuu ahaa waa yamanida imaaraadka weeyo gabadhaha yara laba midgaankii ilmahan laba jirka iijiyey inabta ka qaaday waa kaa saliiddii shirkadda saliidda ilaaliyo iyo batroolka yimi oo shaqa tuman weye batroolka iyo saliidiyo hadduu yahay askari askartu yiman hadduu yahay daacad meelaha daacaddu yiman qof walba meeshiis hadda alrabi baa la yidhaha magaciisa wuu joogaa dabi company froosho iyo operations yuu soo baxayo qadadu iga qaadayo nin iga weyn ninaan loo ka weyn baa qadada iga booba mise saxan ka yar qaarada ah buu cunaayo wuxuu yidhaahaa halka dollara wax ku xulay baaqayga soo celiya buurtu markii noo fogtay sooma yara saanka yarna qaarado ayuu ka qaataa cunta aan cunayo waagig subax wanaagsan hadda muddo 15 sannadood warar baan ka sheekeynay maalina mashaqaayad layma siin mashaqaayad haddaa heli lahaa waan iska dhoofi lahaayo moogti dhakhtar baan aadan maskaxda aho